بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro shacabka Soomaalida ee degan gobolka Banaadir. Walaalayaal salada socotaanba wadanku wuxuu ku jira xaalad kala guur ah oo siyaasadeed. Waxa kale oo aad ka warqabtaan in maaragtay nimanka loogu yeero saamileyda siyaasadeed inaysan isku aragti ka ahayn qaabka nidaamka doorashadu iyo waqtiga ay dhacayso. runtiina ilaa waqtigana kama muuqato wax tanasulid ah oo dhinacyadaasi ay iskaga tanazulayaan waqtiga iyo qaabka ay doorashadu noqonayso. sidaas darteed waa xaalad runtii u baahan in maaragtay si taxadar leh oo looga baxo qof walbana oo ama mas'uuliyiin hadda dowladda federaalka noqoto ama ha noqdaan madaxda xisbiyada ama ha noqdaan dowlad goboleedyadaba intaba arrintani iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo, laakiin arrintani waxay si toos ah u taabanaysaa dadka degan gobolka Banaadir maadaama ay dowladda federaalku fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho, maadaama madasha xisbiyada ragga ugu waaweyn ay fadhigoodu yahay Muqdisho. sidaas darteed haddii aan arrintani si taxadar leh oo meer leh oo deganaan ku jirto iyo isku tanaasulid iyo ku rid maskaxeed aan lala iman in ay caqabad ay ka dhalan karto. sidaa darteed fariintani waxaan rabaa inaan u jeediyo shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir. walaalayaalow waxay idin saaran waajibkaas oo runtii aad kaga gedisan tihiin Soomaaliya oo dhan. sababaha aan kor ku soo xusay oo ah in dowladda federaalka Soomaaliya uu fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir, in madasha xisbiyada qaranka ay fadhigoodu u yahay magaalada Muqdisho. sidaas darteed in aad maaragtay mas'uuliyadaas idin saaran aad cid kale u hibaysaan ama cid kale inay fuliso aad ka sugitaan runtii waa wax aan mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka dheerba aan dan ugu jirin guud ahaan Soomaaliya iyo khaasatan idinkaba dadka degan gobolka Banaadir. taa waxaan u leeyahay waxaa jirto in Soomaalida dhaqan ay u noqotay sidii burburku u yimidba in maaragtay markii ay isqabtaan dadka la yiraahdo saamileyda siyaasadeed in ay soo kala dhexgalaan oo ay dhexdhexaadiyaan groupkan lagu yeero international community oo waajibaadkaasi ayagu ay mar walba qaataan. runtii taasina waxay ceeb ku tahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxay ceeb ku tahay raggan madaxda oo saamileyda siyaasadeed oo Soomaalida ah, ayadana ceeb bay ku tahay. marka hadda maadaama lagu jiro xaalad runtii aan isku tanaasulad lahayn oo ku saabsan doorashada noocay noqon doonto iyo waqtiga dhici doontaba, oo waxaa la isku hayaa qorana tuhun ayaa ku jiro oo ay leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya fadhida hadda waxay rabtaa in ay waqtiga kordhisato. dowladda federaalkana runtii mowqifkeeda kordhisada maysan caddayn, laakiin waxaa jira fafaala ama dhaqan ka muuqda in ay arrintaasi ay macquul noqon karto. marka shacabka gobolka Banaadir degan waajibaadka saaran in ay gutaan oo aan raba inaan caawa fariintan halkan uga diro waxay tahay runtii xasuugana in international community ay arrintani ay wax ka qabtaan. sababta international community gobolka Banaadir oo fadhiga u ah sidaan u sheegay dowladda federaalka iyo madaxda madasha qaranka ay degan yihiin ma degana Soomaali kulama aha. haddii uu dhib dhaco oo runtii ay arrintani ay isfaham la'aan ay ka timaado ama ay wada fariisan waayaan ay xallin waayaan runtii qof dadka ay taabanayso waa dadka degan gobolka Banaadir oo Soomaaliya way taabanaysaa, laakiin si qaas ah oo toos ah waxay u taabanaysaa shacabka degan gobolka Banaadir. marka fariintayda maxay tahay aan u dirayo shacabka gobolka Banaadir? runtii waxaan ognahay in dadka lagu xisaabtamayo labada dhinacba aan soo sheegay ama dowladda federaalka ha noqoto ama ha noqoto madasha xisbiyada qaranka waa idinka marka nin walbaba wuxuu isku halaynayaa si ay ajandihiisa ama aragtidiisa uu ka qabo doorashada ay u fusho, wuxuu isku halaynayo oo garab ka rabo waa idinka. marka waxaan leeyahay shacabka gobolka Banaadir waa in aysan labada dhinacba fikradahooda aysan ku taageerin
ama hadday tahay mid dhanka dowladda federaalka oo kororsi ah ama haddii ay noqoto mid ah in ay mudaharaadyo iyo la qabto oo madasha ay qabato iyadoo oo macnaha ku cabiraysa mowqifkeeda inaysan shacabkaasi raalli ka ahayn in muddo kororsi ay dowladda la timaado waxaan ku waanin lahaa wanaagana ku jira in ay shacabkaasi ay ka noqdaan labadaasi garab isku haya aragtidaasi doorashada in aysan garab siinin labada dhinacba laakiin waxay garab ayagoo oo garab ku siin karaan ayagoo markaasi maslaxadoodii iyo dantoodii eegayo labadaas group way siin karaan garab ayagana taasi ayaa danta ugu jirto garabka haddaba muxuu yahay garabka ay siin karaan wuxuu yahay waa in ay isku qasbaan in ay groupkan madasha xisbiyada qaranka iyo dowladda federaalka ah inay isku qasbaan in ay isku tagaan runtiina ay arrintani oo ah qaabka doorashada dhacaysa iyo xilliga ay dhacaysa ay ayaga go'aan ka wada gaaraan inay u caddeeyaan mowqifkooda ah annagu waxaan garab taagannahay ma garab taagnin ama madasha ma garab taagnin oo kuma taageerayno fikirkeeda dowladda federaalkana arrinteeda kuma taageerayno laakiin waxaan taageeraynaa oo aan isku kin qasbaynaa in aad miiska wada hadallada labadiina dadka wada fariisataan oo arrinta oo ah doorashada haddii waqti lagu dari lahaa iyo haddii waqtigeeda la qaban lahaa in aad idinka go'aan ka wada gaartaan waa in ay dadka shacabka gobolka banaadir arrintaasi ku qasbaan sababtoo ah haddii ay midba midka kale la saftaan waxaa ka imaan karto xaalad aan runtii oo deganaansho u diidaysa iyo soo celin karta dagaalkii sokeeya oo runtii oo dhibaatooyin badan aan kala soo kulmo muddo 30 sano ka hor ah waana ogtihiin maalin walbaba burburku iyo dhibaatadaasi iyo dagaalkaasi geysto indhihiina ayay dadka reer muqdisho ama gobolka banaadir degan aad ku aragtaan oo wax maanta aad ilowsantihiin macnaha aad hataa iska qarin kartaan ma aha waxa kaliya aad nafsadiina iyo maalkiina iyo deganaashihiina iyo xoolihiinaba aad ku badbaadin kartaan waxay tahay in aadan labada garab ku siinin nin walba mowqifkiisa laakiin aad garab ku siisaan labada kooxoodba ama ha ahaato dowladda federaalka ama madasha xisbiyada ha noqoto in aad isku qasabtaan haddaaba bannaan baxaysaan inaad midna aad bannaan bixin oo aad mid ku taageeraysaan mid ku diidan tihiin maalinta dambe midka kale intuu mid ku taageeraysaan mid kale aad ku diidan tihiin haddaaba bannaan baxaysaanba haddii aad tihiin dadka waxgaradka oo bulshada runtii ka tilmaaman oo saameynta ku leh iyo idinkoo wada jira waxaad ku qasbaysaan in aad iskugu keentaan isku qasabtaan inay miiska fariistaan laakiin idinka go'aanka ma lehidin go'aanku dadkan ama dowladda federaalka ha noqoto ama madasha xisbiyada qaranka ha noqoto in ay go'aan ayagoo iska ogol ay wada hadlaan go'aan dhab ah ay ka qaataan doorashadu haddii wax lagu daraayo iyo haddaan wax lagu darayninba in ay ayagu go'aankaasi wada gaaraan taasi waxaan u leeyahay runtii markii taa laga gudbo waxaa loo gudbi karaa maamul goboleedyada laakiin hadda muhiimadda ugu weyn waxay tahay labada ama ha noqoto dowladda federaalka ama ha noqoto madasha xisbiyada qaranka labadoodu waxa waaye